أنت كأنك نفتهم جديد قرب يورث أنت قعدنا يريقوا لهاي قرية العرين كان باشا كي مالي أنا كان شكانسي أكيد مالي مركز سامع معك ده مستوى أنا مديد كتور وايو إنا بدبادي بقى قصبنا ما مركز مديدة وحاول فترة أنا أسيب بدبي أول فترة بسكولadaas nooca ciyaalku ku ciyaaraan nooci faayowga ama uu ku dhacay qori dab ka dhacay kan uu ku dhacayana waa qoriga dabku ka dhacay oo AK47 ka ah ma ku hamisay bistoolad caag ah faayo inaad wax ku dhacdo mana qaadatay riskiga ka imaan kara markaad ula tagto caqligaas askari ku hubeysan AK47 waajibkii shaqadiisii haysta adigoo raba qorigiisii qaran ku lahaa kaasi waxa uu ahaa go'aanka dable xooga Ilyas Xasan Maxamed iyo dable xooga Ayuub Cabdullaahi Maxamed xilli 9 saac ah ayay wixii soo istaageen checkpointiga school Jamhuuriya ee degmada Kaaraan askariga way la hadleen waxay ku yiraahdeen anaga waxaan ka tirsanahay gorgor xilligan wax aan raacnay hilimayno ee nasaar gaadiid mudane gudoomiye intii wada hadalkii socday ayaa eedeysanaha koowaad Ilyas wuxuu la soo baxay buskoolad caag ah ayuu wuxuu ku qabtay askarigii buskooladda marka way duuduuban tahay askarigu wuu fahmaa markii waxaan inaysan buskoolad sax aysan ahayn waa liidku fahmay isla markii isdhaheenna eedeysanaha labaad Ayuub ayaa askariga ku booday qorigiisii macala gacmiisa si dhan garbaduub u qabtay macna dhab ayuu dhahay eedeysanaha koowaad Ilyas buskooladii uu degsaday toorey ayuu la soo baxay oo watay laba jeer ayuu garabka ka galshay qorigii ayuu gacanta la aaday markaa qorigii oo gacantiisa ka sii baxay askariga markuu arkay ayuu askarigu qasnadii ka jirtay qorigii qasnadu ka jirtay qorigii oo kiligiis la orday markii waxyaabaha cajiibka la mudana gudoomiye waxay yihiin buskooladaas nooca ciyaalku ku ciyaaraan nooci faayowga qatarta uu qaatay eedeysana Ilyas wuxuu isku dayay ama uu ku dhacay qori dab ka dhacay wuxuu xooga saarayay inuu ku dhaco macna kan uu ku dhacayana waa qoriga dabku ka dhacay oo AK47 ka ah Quraankaas beerlabka waxyaabaha cajiibka leh waxay ku tusaysaa mudane gudoomiye eedeysanayaasha inay heerkii bini'aadanimada ka gudbeen ay isku bedeleen bahal caadi ah macna way xeerinayaan ma jirto ciidamada amniga ribood waxay haayeen habeenka laba qofood oo dhac ka geysanaya degmada Kaaraan riboodka uu yili sidii u soo socdeen askartii dhac ku bilaabeen waa askar xoog dalka Soomaaliyeed ka tirsan yihiin iyo dhacayaan marka askari kale xoog dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo waajibkiisa gudanayo oo jagboonti taagan ayay wax isku dayeen xilliga habeenka 9 saac inay dhacaan taariikh 7 bishii 7 2025 saacada 9 saac saqbar ayay soo dul istaageen dhibane dable Yaasiin Cabdi Maxamuud oo shaqadiisii ciidamada police military ka haysta kontaroolka iskool Jamhuuriya ee degmada Kaaraan iyagoo u sheegay inay yihiin askar ka tirsan gorgor xooga dalka waxaana ay ka dalbadeen si mashquulis ah inuu saaro gaari geeya goob hoyaadkooda oo meesha ka fog maadaama gaadiidku teelteel yahay sheegashadooda darteed dibanuhu ma qaadin shaki badan shar ayay soo ugu bedeleen waxaana ay la soo baxeen bistoolad caag ah oo ay ku ciyaaraan caruurta yaryar ee faayo waa uu fahmay askarigii inaysan meesha wax ku hayn bistooladana ay tahay caag diyaar garowgiisii ayaynu ugu hortageen inay la qabsadaan qorigii ay damaaciyeen qaadashadiisa xarbis dheer kadib iyo laba toorey oo garabka lagaga dhuftay waa sii daayay AKga dhibanuhu isagoo ka reebtay qasnada eedeysanayaashina waxa uu suurta gashay furashadoodii waxay heeday taariikh horta qaas ma kara ma xasuusta laakiin labaas nin anoo shaqo saaran iskool degmada Kaaraan gaar ahaan iskool Jamhuuriya labaas nin ma yimaadeen waxay leeyihiin asgaran haye mootan saar waawa asgar noocyada la gorgoranahay iyo ay dhina colkooda ii sheegeen aye waayaan waxay markay joogo ninkaas iska soo jaray mid kamid ah Ayuub iska soo jaray bistoolo caag ah tuur qorayde bistoolada sharad inay ka raacdaan arag qorayda aan dhinac u ulbaxayni kan kala iibso boodo garbadoob ii qabtay
karbadu saanto ugu qabaan midiyo oo igu dhuftay gacantana hirigo dhahay qorgay la carreen isla markii saan ee carreen anigana mar cadeenin dhinaca xeeradan soo aastay asgariga markii ila shaqeeyay oo waxar musqul aastay igu rimaay cabdi deeran ay warnimo waa kuwaas ay dabaka qorgay ay qaateen waxara ina raac isku day waa miir dawlmay asgariga leeyo soo daray waxa jagboontiga meesha ay maado abaar markii joogay ciyaalkii wax rabay waa mugti mid kamid ah la qabtaa la yaasino ni daji qor wal hayaan abaar markii joogay taliya yimaade waxaan leeyahay istaal leeyahay intii kaga dhiftay midida garba u dhiftay inta shigshigada leedahay miyaa waa shigay ha shishiga ama ulena dhinka biskoolada wati kewa marka biskoolada wati ha ayuu biskoolada wati midida waxa u dhiftay waa Ilyas adina marka hore mu aqoon jirto hore mu taqaan may hore mu aqoon markaas ku sheegay in ciidan yihiin ha ciidan ciidan waxaan hayaan way dhacday aniga ciidan oo waxa u soo baawurtan baadiir rabo in baawurta leeyahay lagu meesha soo maraan qaarkood ciidan oo meesha rabo oo rabo magaalada hore u soo rabo waa noo yimaadaan waa dhahan nasaar mooto nasaar ayuu labisna iyo ayuu labisnin marka milibsin raacadi wateen colkooda waxooda ii sheegeen hayaan dhahay meesha fadhiis ilaa tuun iyo wax ma igu jirin niman saas oo isku ateena waxaan ku sameeyaa ma igu jirin marka baskoola lagu qabtay baskooladu ma fahanteen inay qaldan tahay inay aag tahay waxa ku fahmay sharootaa ku duuban sharootaana waa ka raacday marka fahmo jaaniski isla marka istaagaa jaanis muslim kana igu soo boodo xilli meesha ahayd meeqa saac ahayd wala bar 8 saac ilaa 7 saac 8 saac ilaa 9 saac meelaas inuu dhaxam 9 saac 10 saac oo habeenimo marka nal ma daraysa ku arkay waxan may nal toosh aan watmaay nal boo ay ka darama ay cadad in jirta jacala markana labadii eedeysane ee riskiga heerkaas la eg qaatay walow ay u martay dable xoogga Ilyas Xasan Maxamed iyo dable xoogga Ayuub Cabdullaahi Maxamed erkan askariga Argentina hawiyada ahaan askarigaana jidka ku aragnay oo taagan waa dhaafnay marka dhaafno nawacay waa u soo laabanay marka u soo laabanay ninkan jilbaha dhulka dhigo dhahay jilbaha dhulka dhigay laakiin aniga waa ka shakiyay aniga checkpoint ka sukay jid ka sukay oo istaagsanaa kaligiisa oo ahay qof kale lama jirin marka daagtaaga meesha ka dhacay filtuura ay u dhacayaan gadaala oo carada gadaal marka waa carada ninkan qoriga ku haad ninkan waa isla qabsadeen qoriga saa wax ma ku gaaro aan xabado igu soo tawo firdhi wax ma ku gaaro ma ima gaarinaan dhahay ani waa soo laaban ninka qoriga Allah heestaa oo dhahay waa soo laabtay ana qasntaa ka jaray aniga inta yow ni dilna asla ama asiga inta dileen ama inuu dilay ana badbaadiya ahay saasay midida ugu dhacay qoriga marka waa qaateen qoriga waa meesha waa la imaan marka ciidanka iyo taliyaha imaada qoriga marka meesha ku wareejinay laakiin wax biskoolad aaga ay nagu soo qabteen ayaga le ciyaal weerarada ku qabteen marka biskoolada aaga maxaa ku sameeyeen biskoolada aaga ma wadan anaga ayaga nagu soo dareen fuusta miya marka hore takay maateen aniga Argentina maya marka wax falaa gacmaha kulma jirin waxaan wadan male oo biskoolada ana wax aan midiyar isbitay midida tawda midida xataa way soo bedeleen midiyar ka dhigay midiy oo kasto oo tawmaarey laakiin dhaawaca waa ana geystay anigana meeshaas laba qof saddexdeena aniga badbaadiyay ninkan qoriga uu ku dhigay ana midida ku door waayo ina badbaadi waa ku qasbanaa ma hada qoriga uu deelayeen waan dhameelahay marka midida waxa ugu dhufatay in asiga badbaadisa ugu dhufatay waayo qoriga waa ka qaadna hadaa rabna waa ku dhufakarna waana ka tagi karna xilligaas shaqada dhaxa inta u socoteen dadka takay maateen todobada camal ee aniga ninkan soo wacay suuqa oo cooska soo marada Argentina muuriya rabna marka xaafateen meesha degantiin inta ka imaateen xilligaas inta u socoteen ninkaas kaasay ka imaay markaas anna iska baashaala Argentina qasnada qoriga ka jira ma ninka askariga lahaa ka jira sidoo ka jirta ana ka jira adaa ka jirtay aniga fildooro inta iga dhuftay waa cararay markaas marka cararay ninkan qoriga isku la dhagay anoo si cararay ninkan ay wacay waa soo laabtay markaas aniga midida inta ugu dhuftay garab
midida inta u wadataa ade midida waa isku ilaalihaya aniga maana meel uma wadan hele saqdhaxa iska socdaa saaxiibkaan midi kala wato maya baskoolada yaa wato feega biskoolada meel ay ka imaata ma aqaan aniga baskoolada iyo laba midiya la keenay meeshaan biskoolada maya dooda ka imaada biskoolada adiga intee ku qoreed ciidanka hadda mishaar ma qaata hadda maya markii hore meeqa meelaha hore lagu xiray meeqa jeer hal mar saldhig la liigu xiray intee ku qoreed marka hadda ciidanka inta ku qoraa inta joogaa wuxuu joogaa afkood inta ku soo tababaratay Itoobiya dhaawac adaa gaarsiin ninkaas ma gaarsiin maya ma ana gaarsiin dhaawac adaa gaarsiin badbaadinay iga ahayd xilli 7 saac habeenimo iyo 8 inta u dhaxaysa hooyadaan ahayn anagu hooyada oo socona askari noo wacay askari waa ku soo laabanay waa idin hubinayaa jilbaha dhigoo nagu dhahay jilbaha dhigay askarigan kale ismurmeen askarigan askari kale lama joogo labadeena askarana dhan askartiina ma aqaan jilbaha dhiga jilbii waa dhignay ninkan oo xeer taagtaaga dhex maray filatuur wajiga ugu dhuftay filatuurku markuu ku dhuftay ninkan gadaal oo carray gadaal markuu u carray xabado ka dabagiyay xabado dhowr xabba gaaraya adig oo kuriday markuu kuriday anigana dhexdooda jilbaha iilay qoray korkaygu ka dhacay iska badbaadinaya ninkan badbaadinayo qoraga iskaga qabtay qoraga markaa iska qabtay war wax ma ku gaaray waxba ma gaarin oo dhahay ee ka soo carar waxaan dhahay qoraga leesta askarigay kaalay haddaan ka soo carar waa dilayaa awdaayo qoragay wuu imaaday qasnadoo ka jaray qoragaa go' ka dhaha geesaa la istaagay ninkan inaa dil rabo u malaynaa ninkanoo kuleetiga qabtay kabacdina asagii ninkan waa isdagaaleen tooriyoo la soo baxay oo ku dhuftay askartiisoo cararaysaa imaaday xabadaha ay maqleen askartiisoo cararaysaa imaaday qoraga barteen nooga qaadeen waana soo xireen wax oo gacanta aan kula jirno faldambiyadana ma jirin waa soconay waa weydii kartaa askariga annagoo soconoo na wacay wax faldambiyada gacanta kule ma jirin wax annagoo qof aan ka soo qaadnay oo aan dhacnay oo nagula qabtana ma jiraan isla meesha ma laga xiraaday isla meeshaan nagula xiray saaxiibkaana isla meeshaan nagula wada xiray waxaa runa ana askariga isaga oo iga istaaga oo na yiri annagoo wadada soconoo na wacay istaaga oo na yiri waa istaagnay gacmaha kor u qaada jilbaha dhulka dhiga waa dhiga aniga ninkaana yiri askaraan nahay xaafadaana degannahay taagtaag naga dhaaf taagtaag maana askartaada ma aqaanay filatuuro wejiga ugu dhuftay ninkan gadaal oo carra xabadna waa ugu daray dhowr baalood markuu kurida ninkan gadaal oo carra aniga dhexdaa taagnaa jilbaha iilay ilaa meeshaa taagnaa jilbaha dhigaa la dhawaa dhiga mooho qoraga aa qabsaday anoo ninkan ka badbaadina anigana iska badbaadina qoraga hoos u qabtay hoos markaa u qabtay ninkaana yiri ka soo carar waxma u gaaraadhaa waxay ma gaarin ka soo carar qoragaaba la heestaa kaale qoragana waxaa ula qabsaday maadaama saaxiibkii xabad oo ku wada ninkaana keligiis meesha uu taagan yahay xabadna oo nagu bilaabay meeshana jagboonta shaqo aysan ahayn oo jagboontka shaqada meel ka sokoo soo jidcad ee tahay askarigaana askari kale aysan oo la taagnayn qof annagana ataagaya inuu yahay saa darteed khatartee hubka ay leedahana waa taqaanaa inaad iska difaacdo waa wax kuu bannaan baskoolad inta u wadataa biskoolad ma wadanaanay yaa wati wax how ma wadan baskoolada feega inta la keenay yaa wati biskoolada feega ah sida cabdidheere oo ka dhawaajiyey wuxuu yiri dhulka ka helna qasnada markaa helayna dhulka ka helna yiri marka wax dhul laga soo qaaday oo asaga afkiisa ka sheegayo waa markaa tagay mididana kana wati xilligaas inta u socotay ninka 9 saac weyn inta la socday 9 saac weyn ma ahayn 7 saac weyn ma ahayn 7 saac inta u dhaxaysa xaafadeena aan weeyaan hooyad u ahayn dhalinyarana leeyahay waa iska baashaalaa ninkan baashaalo ka imaaday iyo anigana shukaansi ka imaaday marka saac ma ka daa ana chat qasnada iyo qoray ka furay qasnada ninkan ka jira qoray marka qasnada iyo biskoolada hal meel ku dhaceen biskoolada yaa wata marka biskooladii qasnada biskoolada ma arkin todobada bishana cadda jirto ku leeyahay cadda ma jirta todobada bish cadda ma jirto oo biskoolada wax lagu arkayo waa xilli mugdi adiga inta ku qoreen aniga waxaa ku qornaa taliska lugta tagay aniga xabsiga ka soo baxay taliska lugta tagaa liigu dhahay hogaanka taliska damaaya laga soo diro gorgor taliska lugta imaaday waxaa liigu yiri bashqada ku soo dhacayso qoraga soo caday qoraga keen qoraga cadeyntiisa doonay waa keen warqadeedo ku qoran tahay oo taliyaha ku saxiixan yahay laba xidig Cabditaah waxaa liigu yiri bashqada ku soo dhacayso isbitaal nacnaca ka tirsan tahay
bashqadana ku soo dhici doonto xagga ku xaroonay inta kasoo tababarta adiga aniga dalka Turkiga sanadkee ma 2020 meeqa mar hor lagu xiray mar maxaa lagu xukumay kiiskayga wareer ka dhacay saraakiil inta joogto iga garbisay 400 waxaa lagu xukumay 434 maxkamadda ka qoreen warqadihii laga soo qoray cadeynta ahayo 445 difaac nafsiga ahayna waxaa looga soo tagay gaashaandhiga saa darteed waxaa la xeeray laaanta maadaama 434 ay ka badbaadineen 5 sano lagu xukumo 445 laguma xukumin xabsi 5 sano ma lagu xukumay marka meeqa ma dhameysad kulligiis xukunka ma dhameysan meeqa sano xireed waxaa xirnaa 3 sano oo u dhiganta asluubta magtiya la bixiyay marka magtiya waa lagu heshiiyey waa la bixiyey adiga mushaarka goorma ugu dambeysay meeqa sano mushaar moogta buuxina la keenay buuxinta markii la keenay inta maqan dhibaca la saaraa la ana xabsi ku jira dhibaca lagu saaray mushaar meeqa sano joogto ama mushaarka waxaa laga xiray 2023 bishii 7 hadda intee ku qoreed hadda meel ma ku qoreed hadda bashqada ku soo dhacay sanacna ku qoran taaleen dhaay 45 maalin oo koors inta la gaarin baa la soo xiray askarigii qoriga laga qaatay ayaa u qeyradhaan tagay saaxiibadiisii kale ee ciidamada oo iyagana suurtageliyey soo qabashada labada eedeysane ee baxsadka ah oo aan meel leer gaarin maanta saaxiibadii ciidamada waa maragyo kiiska intaan aniga aan marqaataan ka ahay waxaa weeye ninka la yidhaahdo Ilyas ayaan soo qabtay aniga markuu kiiska dhacay waan jiifay 9 saac bay ahayd yaasiin cabaadkiisaan ku soo kacay iyo xabaalotooyinka dhaceen markaan soo baxay ninkaloo dhiigbaxayaan oo imaaday nimankii intay u baxsadeen way carareen buu yidhi waan raadinay raadintaan qaybka gale degmada Kaaraan bay ahayd meeshaan joognana waxaa waaye masaajidka Turkiga nimankii baa raadin ku qabanna marka raadintii dhankan marka hore u doon waan ka soo waynay waan soo wareegay gaariga anaga noo imaaday waan soo qaaday kalluunka meel yahada madaxeed lagu dajiyay meesha lagu dajiyay gaarigan ka dagay anima wasiima askara ordan isdeey meel qolo cabtooyda ay gali jireen oo ku cabi jireen ayaan gale ninka la yiraahdo Ilyas oo ordaya igu soo dhacay isaag baa leeyahay waran qabto wuu isdaayay meel oo barxada saas u banaan oo iga gale oo dhanka kale meel laga baxday ordan wareegtay dhanka kale ka soo istaagay meeshu ka bixiraan inanka ka imaadaan isdaqaajin walaalo hay dirin buu yiri qoriga keema qoriga waan ku soo qoriga sabirta qoriga waan ku siin buu yiri qoriga moot markaas qoriga waan ku siin ay qoriga daysanayso cid ku dilaysa cid taawaris malahan ku yiri soo baxay ninkii qoriga qaaday ee la socday ayaa igu raadi ninkii igu raadi soo qaadnay gaarigan soo saarnay wuxuu geeyay meel yiraahdo bulo أحمد عبد الله كيف أنا روع ووعي كي غوري وقصنا الآن هل بالطريق كجست وضو يوميشن يا نوي ما لا أنا نمو نسوي سعيد كيس بوعيه مش هنكون معنا غوري كلو رجني لبوا صاغ بني محن كني حرون تنادي أنت كيس كو جاي أنت فان المخاطر يا كوكيو كيس كانوا دعكوا شيء حبار دائما كوكا wax la qaatay ku gaad xabaad ay markaan ku kacay oo ilinka soo istaagay ninkan dhiigbaxan way maad yaasiin waxaa jirto baskoolad oo feeg baskoolad caag ay ugu qabtay taas ay baskoolad markii ay ninkii ay baskoolad qoray dhaawacay lama joogin gudaha ku jira ma baskoolad caag ma aragtay ha ta joogto yaa laga qaaday baskoolad caag yaa laga qaaday baskoolad caag waxa weeyta ninka Ilyas marka qabaysay ma ka qaaday mise ka hor laga qaaday maya meesha kaga dhacday oo waxa loo sheegay ninkii watay dhaawacay meesha way ku dagaaleen abaar bay ku xarbeen ata qasrada qori meesha ku laga soo qaaso marka baskoolada yaasiin ay sheegay baskoolada had ku watay biiray ninkeeda Ilyas marka warsateen qof waa wata dhaxma jira ma yaa warsateen Ilyas ana wata dhax Ilyas yaa rarto waxa tiri qoraal la qaatay ninka waxa qaatay waa askari Soomaa askari marka askari ahaan anu ma dib man ku askari laakiin inuu askari yahay wad ogaatay Soomaa dibaan ku ogaa okay askari qori gacanta u galay qasnada ka tagayo ma jira ha ama may hadii isla qabsado askariga waxa laga qaatay kaligiis ayuu ahay Soomaa soo loo sheeg aniga waa jiifay xilli 9 saac bar 9 saac iyo adiga wax la jir amal ahayd soo qeylnaa ku soo kacnaa askariga dhaawac oo maarta dhaawac sheeganaya askariga shaqada saarnaa
oo dhahay niman ay dhaawacay oo qoriga naga qaatay hadaa ku soo baxnay ciidankii oo dhammaan maarta soo kiciyay meesha waxay ahayd xaafadda labada dhinac dhinacna kalluunka dhinacna waxay ahayd dhinacaan oo fagax xigto labada aaga ciidanka kula daadiyay nimanka la soo raadiyaa dhahay anigana dhinaciga ka raadiyay marka waxaan saa u ordaynay waxaan soo qabanay ninka la yiraahdo Ilyas aan soo qabanay ninka kale meel ku sheega dhahnay Ilyas wuxuu yiri hay dilina ninka kale ana meel ku sheegay okay yaa dhahnay marka nabad sidii ku soo wadnay xaafadii awal ka soo baxeen eenakii iyo maartana geeyay ninkan ninka kale oo imaanaha u dhaay sug marka ninka kale la wacay xagee joogtaa waaye ani ciidanka ka soo baxsaday xaafadii aan joogaa annaba soo socdaa u dhahay marka ninkaan oo socdaa aagi soo galay sidaas asagana gacanta maarta ugu dhigay oo qorigii asagoo gacanta ku hayo qorigana qasanta ka go'anta wato yaa waa kaas ayuu qoriga markii ayuu laga qaaday man ayuu laga qaaday awalna waxa qaaday Ilyas oo isku dhiibeen yani isku dhiibeen goobta falka uu ka dhacay qof laga soo qabtay ma jiro Soomaa ma jirto waxa tiri waxaan qabanay Ilyas kadibna waxa yimid Ayub Ilyas laba meel oo kala duwan ayaa laga soo qabtay miya labada kala duwan ka soo kala qabanaa askariga tiri waardiyo saarnaa qorigiisi waa laga qaatay miya qoriga waa laga qaatay soo waa laga qaatay okay askarigaas waa joogaa Soomaa waa joogaa ma haysanta ninka shaqada saarnaa mas'uulka soo aaday labada way maadeen siyaasi sheegay meena labada daawo imaadeen in harbi qori ku dhigana bilaabeen qoriga qaataan banaanka daa soo baa ninkaas oo dhiig soo arkay asigu mashquulin ayaga raadi mid kamid ah waa ku soo qabtay xaafadda kalluun oo mid qoriga qaatamaana mid kale xaafadda kalluunka ka soo qabtay asaan nin kale ku sii raadin qoriga waxa uu ka doonay Bool Abdale saaxiibka waa dhaanno mobile dir inta isku imaana dhamal asaa ku mishignay saaso nin qori wata koran ana ka u tagnay xafidiisa u tagnay saaxiibkiisa ku mishignay asaa ku raadin Yaasiin oo lagu dhagan yahay oo wax laga qaadayo ma arag may okay qoriga la qaaday maahane wax kale oo dad laga soo qaaday oo hanta islaameed ah mobile ha noqdo ama lacag ha noqoto ama saacad ha noqoto oo dad kale laga soo qaaday oo aad aragtay ma jira maya ma jirtaa in dadkan iyo Yaasiin ay isqabsadeen ayagoo is haystaan xabad ay dhaceen ma jirtaa xabad maqli laakiin ma arkin okay xabad wad maqash markana bandhiga xafiiska xiraalinta oo lagu muujiyay caadaystinimo dambi oo lagu helay eedeysanayaasha eedeysanaha koowaad ee dabla xooga Ilyas Xasan Maxamed eedeysana Ilyas waa eedeysanaha gacanta dhaawaca iska leh waay oo dhaawaca u geystay askariga qorigana gacantiisa ugu qaaday sawiradaani waa markii gacanta lagu dhigay eedeysanaha koowaad Ilyas subaxdii markii loo sii waday hay'adaha si baaris loogu sameeyo kanne waa sawirkiisa hadda agabka lagu soo qabtay Ilyas solada caaga ah ayuu watay labada toorey mid kamid ah ayuu Ilyas watay waana tooreyda uu ku geystay dhaawaca solada caaga oo maxkamaddu arki kartana waa solada uu ku qabtay dhibana Yaasiin uu isku dayay inuu qoriga ugu qaado heerka uu gaaray Ilyas iyo waxyaabaha uu iska dhaadhacshay in lagu qaadan karo qori uu dab ka dhacay qoriga ay qaateen waa kana markii qoriga akeega ah ee Kooriyaanka ah ee dhaxlaabka ah ee dabku ka dhacayo ayay aqliyadoodu meesha la gashay eedeysanayaasha ay wax isku dayeen inay ku qaataan qoriga ay maxkamaddu arki dhibane dabla xooga Yaasiin waa kana iyadoo gargaar caafimaad loo fidinayo oo dhaawiciisi la qaaday oo istaal Digfaar yaal waxa ku mudan ku socdo waa filombooyin waxa maradii lagu soo duubay gacantiisa waa taxabadkiisa saaran oo wada dhiiga waxa dhimar u leeyahay mal marka waa xaalad halis ku jira oo markii gargaarka caafimaad loo fidinayo eedeysanaha labaad ee Ayub muxuu yahay markii Ayub waa caadeysta dambi Ayub maxkamadda ciidamada qalabka sida horay ayuu u soo maray iyadoo lagu eedeynayo in uu dil bareer ah u geystay
askari lagu magacaabo marxuum X dibli xooga Cabdi Maxamed Warsame falkaas oo ka dhacay taariikhdu markii ahayd 1 bisha 2022 degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayuu askari xooga dalka Soomaaliyeed ah si bareer cad ugu soo duulay madaxa xabad ugu soo dhuftay baaristiisa la guda galay dambigaasna lagu helay xukun maxkamadeed ku dhacay dhowr sano ayuu xabsiga dhaxa ku soo qaaday kuma waana qaadan dilku geystay ciqaabtu ku mutaystay kuma waana qaadan heedesan ayuu xabsigii markuu ka soo baxay dhibaateyntii shacabka halkiisa ayuu ka sii waday iyadoo waliba markaan uu noqday bahal rasmi uu noqday oo sheekadu awal shacabka la dhacay ahaday uu ka gudbay markaan askartii qoryahoodii isku dayayo inuu toorey ama muskilad caaga ku furto isku dayayo macna taasoo ku tusaysa marka xadkii loogu talagalay ee bini'aadanimo inuu ka gudbay eedeysan ayuu baraha galkan uga wakiilka ah taliska sahanka iyo sirdoonka xoogga dalka ayaa dhageysigan dacwadeed ku biiriyay macluumaadka natiijada baarista ku xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada xeraaliye Dhamme Xasan Tarsan ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu qaado qodobada eedda labadan eedeysan lagana saaro ciidanka xoogga dalka maadaama ay dhabarjibiyaal ku yihiin hayeeyada dagaalka kula jira cadowga anagoo soo gabagabeynayna si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanayaashu waxa ay dhac iyo dhaawac isku tareen askari saaxiibkood ah oo xoogga dalka Soomaaliyeed kala tirsan oo habeenka waqtiga dambe ah 9 saac habeenimo ah banaanka qabowga u taagnaa shacabka Soomaaliyeed in ay ka badbaadaan wax kasta ee dhibaateynaya oo ama maalkooda ku xadgudbaya ama naftooda ku xadgudbaya in ay ka badbaadiyaan ay askartu waqtiga habeen barka ah banaanka u taagan yihiin balse yaa dhibaateeyay askariga inta oo wanaaga falay waxa dhibaateeyay eedeysane Ilyas Xasan Maxamed iyo eedeysanaha labaad oo ah Ayuub Cabdullaahi Maxamed oo askarta xoogga dalka Soomaaliyeed kala tirsan ayaa dhibaateeyay way u yimaadeen waxay uga warbixiyeen inay yihiin askar ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan gorgor ka tirsan waxay ku yiraahdeen ama ka codsadeen xilligan waqtiga dhaxa ah inaysan gaadiid raacan helin waxayna ka dalbadeen inuu gaadiid saaro si ay u gaaraan meelaha ay rabaan balse hadafka ay u socdeen kaas uu ka bedelna waxay u socdeen ama hunguriyeen qoriga oo wata askariga ayay hadafkoodu ahaa in ay ka qaataan maxay sameeyeen markii eedeysanaha markii wadahadalka markii uu socday dhibanaha iyo eedeysanayaasha intuu wadahadalkii socday ay waxay sameeyeen kaga faa'iideysteen eedeysana Ilyas muskoolad caag ah oo aan maxkamadda u soo gudbinay ayuu wuxuu ku qabtay dhibanaha ayuu ku qabtay isla markiina waxa ku booday Ayuub garbaduub ayuu qabtay si qorigiisii Ilyasna markaa muskooladiisa intuu dijistay caag ahayd ayuu toorey la soo baxay oo 2 jeer ku dhuftay qorigiina way ka qaateen soo bilaa qasnad ah mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh howlgal la sameeyay ayaa lagu soo qabtay eedeysanayaasha midba meel ayaa laga soo qabtay sida ay maragyadu maxkamadda horteeda ka cadeeyeen maxkamadda waxaan hor keenay ilaa 3 marag oo uu ku jiro taliyihii operationkaas hogaaminayay howlgalka lagu soo qabtay eedeysanayaasha madaxayaasha oo ku jiro ayaan u soo gudbinay waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen waxay arkayeen iyo howlgalka qaabkii uu soo qabteen eedeysanayaasha sidoo kale waxaan maxkamadda u soo gudbinay dimbi muujinta sawirrada dhibanaha oo ay ka muuqato dhibka gaaray iyo sidoo kale agabkii lagu soo qabtay eedeysanayaasha ayaan maxkamadda u soo gudbinay waxa soo dhan marka la isku daray mudane gudoomiye waxay tusaale cad u yihiin in uu dimbi dhacay eedeysanayaashana yihiin kuwa geystay dimbigaas sidaas darteed mudane gudoomiye waxaan codsanaynaa in lagu qaado eedeysanayaasha qodobada aan ku soo eedeynay looga naxariisan isla markaasna qoraxda laga qariyo ma mudna bulshada Soomaaliyeed ee hooska dawladnimada ku nool in ay ka sii dhex muuqdaan ma mudna barkee nolosha bini'aadanka ay qatar ku yihiin umana qalmaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ee cadawga furmaha ku baacsan sidaas darteed waxaan mar labaad dalbanaynaa in xaaladda ciidanka laga saaro xabsi dheer loo diro maxkamadda iyo mahadsantahay abukaate Shalaanbood oo ahaa qareenka labada eedeysane ayaa maxkamadda ka codsaday in muwakkiliintiisa la siiyo
xorriyaddooda. mudana guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh muwaakiliintayda waxaa la soo xiray oo meesha ku qoran 7 bishii 7 2025 maantana waxaa joognaa bishii 11 mudana guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh eedda xafiiska xeer ilaalinta soo gudbiyey waxaa ku qoran waxay ku taariikhaysan tahay 4 bishii 11 2025 waxaana ku qoran markhaatiyaal oo 3 ah iyo 1 dhibane mudana guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh qodobada muwaakiliintayda lagu soo eedeeyey waxay ka kooban yihiin 4 qodob Ilyas waxaa lagu soo eedeeyey 440 iyo 484 440 waa la gartay waa dhaawac loo geystay shakhsi muwaakilkayga marna ma inkirin si sax ah dhaawacaas u dhacay qaabkaas u dhacay waa sheegay waxaa raacsan 484 oo ah dhacii muwaakilkayga Ilyas wuxuu ku sheegay wax la dhacay ama la qaaday midna ma jirto waa cadeeyay maxkamaddan waa u sheegay waxaa soo haray Ayuub Cabdullaahi Maxamed waxaa isku eedeysan yahay 484/71 oo ah wada jir waxaa la yidhaha 484 bis ayuubna waxaa la yidhaha 484/71 ayuub yaa dembi la gala marka qofka ayuub dembiga la galay yaa waay oo 71 loo raacay mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh ayuub waxaa kala la yidhi 61 xeerka ciqaabta Soomaaliya waxaa la yidhi waa caadeysta dembi ayuub waxaa la eedeysan Ilyasni eediis goona laga soo dhigay waxaa la yidhi 440 Ilyasa goona u tahay 484 waxaa la yidhi ayuub ay goon u tahay ayuub cadi dembi la gashay wala lama hayo laakiin hadda waxaa xiran ayuub iyo Ilyas 61 caadaystii 484 ayaa soo saaray xafiiska xeer ilaalinta waxay ahayd wax Britishna soo jeedin oo meeshiis wixii inay u qarsanaadaan aan nabadno ahaleed qodobka 61 muxuu sheegaa qodobku wuxuu leeyahay dembiga la galay hadduu dil ahay 5 sano gudahooda ninkii ina nin kale asdilo dhacdo ahay 5 sano gudahooda haddana ninkii dhaci shalay lagu eedeeyay oo maxkamadda ay ku xukuntay haddana 5 sano gudahooda inuu dhaci geysto laakiin dila dhacay waa laga soo heshiiyey waqti soo wareegay meel kale oo ahaa maantana waxaa la muwaakiliintayda runta markii la sheego waxa meesha la keenay marqaatiyaalka oo halka dhinac ah askartii meesha joogtii ah maxaa yeelay waa hal dhinac waa mutahim maxaa yeelay askari ayaga ay xukumaan ayaa wax loo geystay askariga wada taagnaa askariga wax dhibaateeyay waxaasoo dhan ma laga soo qaadan gadaal la marsaday laakiin waxa yaab leh muwaakilkayga Ilyas waxa ku yaalo filatuur dhaabaca ku yaalo intaas way jeexan tahay waxa ku dhuftay Ilyas waxa laga qoray cadeen maxkamadda waxa meesha yaalo cadeyntii xafiiska baaraha oo hay'adii meesha ay ku xirnaayeen wuxuu ka qoray cadeen aniga askaranahay waxa taaganahay goob shaqo waardiya saaranahay askariya meesha joogo ciidan 2 qofood oo sacboolay socota timid waxa la yiri waxay qaateen qore
qorigii waxaa lala aaday xaafadii askari meesha jooga oo asiga leeyahay xabada ridi cid u soo dhawaan karto oo qori ka qaadan karto xaggay joogtaa ma jirto wax ka jiro oo ilaahay abuurta malaha muwakkiliintayda waxay ii sheegeen goobta falkaas ka dhacay ayagoo ku hardamaayo qorigana haysto dili karo askar kasto meesha joogta dili karo waxay go'aansadeen inaan qofna ay dhibaataynin qorigii ayaga lagu dhibaateeyay madaxdii oo meesha timid askartii inay isla goobta ay ku wareejiyeen haddana waxaa la leeyahay Ilyas la soo qabtay waxaa lagu raadiyay waxaa la geeyay gurigii waxaa la wacay ninkii maqnaaya la wacay waxaa keenay ayuba Ilyas keenay ninna wuxuu leeyahay goobtii waxaa lagu qabtay nin la yiraahdo Ilyas waa israacnay waxa u tagnay guriga tagnay ayuba qorigii qasnad la'aan hayo guriga oo tagnay marka marqaati oo been inay tahay waxa cadeynayo hadalkooda oo isdhaafay iyo cadeyntaas oo laga qoray dhibanaha maxkamadda sharafta leh waxa meesha ka baxay 484 wax dhac liiraah qof bin aadan oo la dhacay ma jiro laakiin waxa jira askari dad dulmigiisiina ku guul dareystay oo qoriga laga qaatay waa jira taas cidiida karta mari askar dad dulmigiisina ku guul dareystay muwakkiliintay way ogol yihiin waana jira tooriya la keenay waxa la keenay maxal dhihi jiray laba toorey hal toorey Ilyas anas watay asaqiraal mid kale yaa wati nafteeda cadeynay rabtaa baaraha wuxuu yiri kiiskii ma tagan goobta ma tagan waxa la keenay cadeynta ayaa keenay kooxdii halka dhinac aheeda keentay maxkamadda sharafta leh waxaan cadeynaynaa muwakkiliintayda inta ay maxkamadda u sheegeen inay sax tahay wax kale oo meesha yaalan aysan jirin 484 wax cadeen oo maanta loo keenay inaysan jirin 61 oo ayuub lagu soo eedeeyo caadeystaana wax ka jiro ilaahay abuurta male wax caadeysta leeyahay ma jiraan sababtoo dil mar hore dhacay niman ay isxabadeeyeen qofku dhintay laga heshii dhacmiya may wax caadeysta ma karo ayadana meesha ugu baxeena maxkamadda sharafta leh marka waxa ka codsanayaa anagoo u soo koobayo oo in ay diido xafiiska xeerlaalanta eeda soo qoray oo 484 iyo 484 oo 61 inay diido muwakkilkayga Ilyas wuxuu qiraal u yahay 440 inuu ninkaas toorey ku dhuftay oo garabka tooreyda laba meel soo calaamadeeyay asaa qiraal kaas qorina iska qaadanay qiraal u yahay laakiin isla goobtaas falka uu ka dhacay inay ka tagan meesha lagu qabtay qiraal ay ka yihiin intaas inay diiday marqaatiyaalka beenta ninkaas warqadaasna hadii ay gal ku jirto amba xafiiska xeerlaalinta ay noqoto cadeyntii hadda ka qaado waaye baaraha aydan maxkamadda waxa ka codsanaa inay akhriso si dhabtina ay u akhriso maxkamadda sharafta leh way mahadsantahay maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda waxa ka codsanaa kiiska lagu soo eedeeyay inay dib u baarto waajibaadkeedana ay gudato maxaa maxkamadda ka codsanay maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay shaqadeeda dib u noqdo oo dib u shaqeysto gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray Aftaax Aqyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.